Bismillahirrahmanirrahiim. Halkan waa Somali News. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho iyo xaaladda. Habeenadii u dambeeyay waxaa soo badanayay dagaalada iyo weliba dhiilaha colaadeed haltaas oo ay urinayaan laba nin amaba dowladda iyo weliba dhanka mucaaradka. Dhanka mucaaradka waxaa urinayo oo dhawaan ku soo biiray Saadiq John oo ahaa taliyihii ciidanka gobolka Banaadir, halka dowladda ay hogaaminaysa Biixi iyo weliba saraakiil kale. Magaalada Muqdisho ayaa wajahaysa habeenkii markii la gaaro cabsi aad iyo aad u weyn, halka maalinkiina jawiga uu degan yahay. Lama oga waxa lagu maagan yahay Saadiq John oo xilkiina laga qaaday, dhammaan jagooyinkiina laga daadiyay. Xalay ayay ahayd markii waan iyo weliba dhiilo colaadeed ay ka jirtay dhanka shir kale ee uu ku sugan yahay Saadiq John. Saadiq John ayaa shir kale galay xalay maqribnimadii kadib markii ciidamada dowladda ay ku jareen gurigiisa oo u dhow Eleboorka ciidamo aad iyo aad u fara badan, hase yeeshee qaybta dambe uu ka baxay dabadana la galay qabiilkiisa. Tan ayaa noqonaysa dagaal bilowgiisa haddii dowladda federaalka Soomaaliya aysan ka baaqsanin inay duulaan cad ku qaado Saadiq John. Mucaaradka ayaa gebi ahaantood xalay ku hoyday shir kale iyo weliba dadka ay isku heebta yihiin. Magaalada Muqdisho ayaa wajahaysa colaad hor leh taasoo kasoo kabsanaysay sanadihii ugu dambeeyay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhaga xirtay dhammaan baaqyada ka imaanaya beesha caalamka, qaramada midoobay iyo weliba ururada taageero Soomaaliya kadib markii uu sameysay muddo kordhin aan sharci ahayn sida ay sheegeen dadka odoroso xalka Soomaaliya. Lama oga waxa ka dhalan karo, hase yeeshee dhiiladan colaadeed ayaa noqonaysa mid haddii aan xal siyaasadeed loo helin sababaysa in gacmaha la isku xigto. Haddii ay dhacdo gacmo xagasho ayaan waxaan u raadnay shacabka Soomaaliyeed qax iyo dagaalna aan ka soo kabsanin, kuwaas oo 25 sano ugu dambeysay qax iyo dagaal ku jiray. Haddaba halka Soomaaliya waxa uu ku jiraa xasilooni siyaasadeed iyo is-afgarad, isfahan iyo weliba in lagu dhameeyo miiska. Hase yeeshee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa taasi ka gaabinayo kadib markii uu adeegsanayo qori caaradiis laguma xallin karo Muqdisho. Waxaa sidaa yiri qaar ka mid ah mucaaradka. Warar hadda soo dhacaya waxay sheegayaan in magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah lagu jiray gaariyaasha beebada sida isgoyska dabka, lamana oga sababta ay dowladda gaariyaasha halkaas ugu jirtay. Bal adigu maxay kula tahay halka Soomaaliya sideese ugu macquulsan ee lagu xallin karaa? Alla waxaynu ka tuugaynaa in sharta magaalada iyo sharta meel walba uu Ilaahay uu inaga xijaabo, cimrigeennana uu Ilaahay noo barakeeyo. Dhib iyo dhibaato kama bixi karnee in Ilaahay uu gees inaga mariyo.